بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa halkan igula sugan siyaasi Cali Axmed Kooshin oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland isla markaasina waayadii ugu dambeeyay ku jiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani balse muddo dhexdaas ka baxay oo sheegay inuu xisbigaasi ka baxay. Cali Axmed Kooshin waayadii ugu dambeeyay kama soo dhex muuqan siyaasadda. Cali miyaad siyaasadii ka fadhiisatay oo muddo laguma aragay waad ka baxday mise waad ku jirtaa? ما يوان كجرا كما بحين لكن مربع جرتي عن حسب داري كبحي كل الدد وعسو يدينا أنت وأنا كل نقطة استمر كيبا لكن واحد كل نقطة بلا ميكروفون يبلا صحافة أنا أقول صحافة دمرين أيام كل نقطة يعني وعلى جاي أبادتكو وعرنا يعني صحافة دي أنا أقول سكول وين مدلل سريع ديرها لكن أنت موسى مدحوينها وها إن وحلا جاي أبين لي هذا سياسة وكفرستي ويا لقوما أرجميديه كما فريسن لكن ما حد عاي برجور واحد شريك معنا رجع يوم ما شريك رجع يوم أمرني ما يوم ما أنت لكن واحد شريك نكليا حد قلت شيء دنك كليا موسى أو كليجيننا ayaa jira marka dadku inay iska aamusaan iyo inay dhagiba jaan leekaato oo ay wax yeelaan ba garan waayaan ayaa muuqatay marka aamuskaygu wax la yaab la maaha wadankoona baa wada aamusan oo yaaban marka deyntaan hadii lahaa inaan iska aamusaan gartay cali xisbiga mucaaradka ah ee wadaniyeed ku jirta muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ku doodayay in aanay gelayn doorasho aan ahayn ta madaxtooyada oo tan ururada soo horeynaysa oo la sheegay inay soo horeynayso aanay gelayn oo madaxweynuhu ku adkaysan inay taasi soo horeynayso adigu mowqifkaaga siyaasadeed see kula muuqataa anu mowqifkaaga siyaasadeed xisbiga wadani iyo amba ucud oo isbahaysiimka ayaan la mowqifay waxaan ogahay inaanay doorasho madaxweyne waxaan ahayn wadankan ka dhacaynin muusara aruur buu sheekaynaya aqligoodu caaya dadka aqligooda ma jirto xataa ka run maaha doorashada ururada horeynaysa xataa ka run maaha wuxuu doonayaa muran labada siyaasadood muran labada sano uu ku dhamaysto oo daba haddana 3 sano loo kordhiyo raganimada muuse waata keenaysa 2 sano oo lagu kordhiyay muranka ururada ku dhamee 3 sano oo dambe ayaa qorshaystay 5 sano inaanay doorasho wadanka ka dhicin jidwalka ugu ma jirto doorasho hadduu mid urur qabanayo nasteexbaabay halay ma qabanayo doorasho qabanaya ma jirto ururo uu tartansiinayaa oo qaar uu la soo baxaya dadka qaar buu la soo baxayaa wato xaqu kala soo baxaya qaar wato doorasho uu qabanaya ma jirto isna musharax maaha kitaab hadii la yiraahdo ku baraysaa inaan muuse musharaxay waa ku baraya waayo waxaan u leeyahay aqoon dheer isna wuxuu leeyahay aqoon dheer way cali muuse waxaad isku soo haydeen muddo dheer xisbiga kulmiye ma noo sheegi kartaa dabeecadihiisa iyo waxyaalaha uu jecel yahay iyo inuu kursiga jecel yahay iyo inaanu jeclayn iyo muuse sidoo kursiga ku soo fantay uu halka ku yimi laakiin waxa weeye muuse wuxuu ku soo fantay muuse gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaanu keenay annagoo garbaa hayna ayaanu garbaa saarnay nin u soo raftay oo dhibaato u soo maro bahalka ku soo fuulay oo loo soo ololaysto ma ahayn madaxweynenimada musharaxnimada tiyo hareeraha la hayaan waa lagu fariisiyay ugu fariisiya waa lagu fariisiyay madaxweynenimadana waa lagu fariisiyay kol hadii ugu fariisiseen halkaas waa ninkii suldaani dhacay ayaa bariga suldaanka leeyahay wuxuu aniga wadadu gaarsiiyay aniga la bidu gaarsiiyay anaga isku hayay suldaanimadana hirgeliyay igaarsi isagu muuse wuxuu weeyaan kol hadaa ugu fariisiseen aniga isku haya dherarkeedii inta leegtahay idinku isaara oo kursiga hor isaara tolaya reer hebelay baa lagu saaray
idinkaga sheekeen ma siduu ku fuulay gudoomiyenimada sidaasuu ku fuulay musharaxnimada sidaasuu ku fuulay doorasho horta waddanka ka dhacaysa doorasho aan lagu heshiisahayn waddanka ka dhici mayso doorashada waa in lagu heshiiyaa oo ciddan saamileyda siyaasaddu waa inay ku heshiisaa laakiin maaha awooduu leeyahay madaxweynuhu inuu qabto haddii awooduu leedahay taayidda ha qabto imika aroorta barriba ha qabto golaa la odhan jiray waxay caanaha weybiyayaana waxay idhaahdaan caddaantoodana allah ee haya badintoodana anaa isku haya markaa kursiga inaan fuulay allah ee haya muddo dherarsigana anaa isku haya